الحمد لله والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. buugtii shalay la oran jiray ABC ee loogu talagalay caruurta kindergartenka dhigata ama xanaanada dhigatay da'doodu 4-5 ahayd. buugta magacooda maanta waxaa loo bedelay buugga la yiraahdo GBC. u fiirso, shalay wuxuu ahaa ABC, maanta maxaa loo bedelay gay. waa ninka qoomuluudka gay. BC waa buugga aan kor ku soo sawiray. yaa loogu talagalay ma aha aniga adiga, waxaa loogu talagalay da'yarta 4 ilaa 6 ilaa 7 ugu badnaan. waxaan rabaa marka inaan ogaano laba shay. kow, buugani waxaa la siiyey the best book for the kids of the year. sanadkii la soo dhaafay kii kasii horeeyey buugga ugu fiican ee caruurta loogu talagalay. waxaad arkaysaa caruurta meesha ku socdaan. aan gallo marka. shalay haddii ABC ay u taagnaayeen A for an apple, A waxay u taagnayd tufaax, B waxay u taagnaan jirtay book, C waxay u taagnaan jirtay cat. maanta xarfaha luqadda ingiliishka oo dhan saad ula socotaan luqadda ingiliishka 26 xaraf bay ka kooban tahay. xaraf walba macnihii annagana lagu bari waa la bedelay. maxaa loo sameeyey? macno u diyaarinaya caruurta qoomuluudnimada walciyaadu billah. u fiirsa marka. A waxaa la yidhi waa ally, markaasa waxaa lagu soo hoos qoray a friend who is there to love you and support you. maxay u taagan tahay wehel mar walba diyaar ku ah inuu ku jeclaado oo ku taageero. waad arkaysaa 4 jirka waxa lagu gurayo. B shalay waxay ahayd book, maanta B waxay u taagan tahay bisexual. bisexual waa maxay? waxa weeyaan labkana uu tagi karaa, dhadigana uu tagi karaa walciyaadu billah. markaasa waxaa lagu hoos qoray you can come out and scream and say I love boys and girls and I am proud. intaas waa lagu hoos qoray. yacni bannaankaad u soo bixi kartaa, waxaad dhihi kartaa adoo dhawaaqaya wiilashana waan jeclaan karaa, gabdhahana waan jeclaan karaa, waanan ku faraxsanahay oo proud baan ku ahay. subxaan allah. waxaad arkaysaa caruurta qaabka loogu gurayo dhaqan xumada. C shalay waxay u taagnayd cat, bisad, maanta C waxay u taagan tahay coming out, oo macnaheedu yahay you can come out. bannaankaad u soo baxaysaa, waxaad leedahay I am ready to express my inner feeling. waxaan diyaar u ahay dareenkayga hoose inaan adduunka la wadaago. waad garanaysaa waxaan ka hadlayo. waxaana waxaa loogu talagalay 4 jir walciyaadu billah. D shalay waxay u taagnaan jirtay dance, hadda waxay u taagan tahay drag queen, oo ah waxay leeyihiin you can dress however you want. drag queen inta badan waxaa la yidhaa nimanka intay sida naagaha usoo labistaan, kabaha dhaadheer soo xidhaan, dharka ku dhegan soo xidhaan, niniikiya. dumarkana way noqon kartaa. yacni 4 jirka waxaa la barayaa sida dumarkana waad u labisan jirtaa, sida raggana waad u labisan kartaa. drag queen waad garanaysaan. E waxaa looga dhigay equality, macnihii waxaa nahay baa hoos ku qoran one team. waxaan nahay hal team oo siman. muhiimaddu waa that we should love each other, inaan isjeclaano. macnihii E waxay u taagan tahay baa 4 jirkeena lagu odhanayaa in aan nahay equality, wax la yidhaahdo inaan wada siman nahay. oo haddaad qoomuluud tahay, haddaadan ahayn, haddaad bisexual tahay, aanu hal team oo bini aadama wada nahay. muhiimadduna ay tahay that we should love each other. F waa family, macnihii waxa weeyaan familku 2 aabbu noqon karaa, 2 hooyo noqon karaa walciyaadu billah. muhiimaddu waxa weeye in ay isjeclaadaan. waad arkaysaa 4 jirka waxa lagu gurayo. G waa gay, waa ninka qoomuluudka weeyaan. G maxaan marka xarfahan usoo qaatay? waxaan usoo qaatay ilmaha 4 sano jira, 5 sano jira, 6 sano jira. buuganaad kor ku aragtaan iyagaa loo soo saaray in lagu beero that it's okay, inay caadi tahay qoomuluudnimadu qayb nolosha ka mid ay tahay, wax lagu faani karo inay tahay. haddaad sidaa dareemaysana bannaanka soo bax. waxaan rabaa waalidiinta inaan ku idhaahdo muuqaalada soo socdo dhan waxaan kaga hadli doonaa xaraf walba wuxuu taagan yahay. waxaan qarinaa meesha ma jiro. waxaan rabnaa waalid walba inuu ogaado khatarta aan wajahayno si aan ula soconno. waayo haddaad waxaan jaahil ka tahay, ignorant ka tahay, waxaad moodaa adduunku kii shalay kale inuu yahay. adduunku wuu isbedelay. waxa hadda laga hadlayo waa buugtii kindergartenka, xanaanada caruurta loogu talagalay weeye maanta buugta qoomuluudnimada loogu barayo.